salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan daawade soo dhowaada saaxiibayaal waxaan jecelnahay dhammaanteena inaan noqono kuwa la jeclaysto habdhaqankooda iyo dabeecadahooda gaarka ah haddaba daawade maanta mawduuceena waxaan uga hadlaynaa sida loo noqdo qof la jecel yahay qof kasta oo bini'aadan ah oo ku nool dhulka korkiisa waxa uu xiiseeyaa inuu noqdo qof la jecel yahay in la qadariyo oo la tixgeliyo goorta uu xiriir la samaynayo dadyowa kale haddaba waxaa jira qaab dadka aad ku soo jiidan karto oo ay kugu jeclaan karaan si aad u heshid tixgelin iyo jacayl intaba qodobka koowaad dhoola caddayn u dhoola cadday asxaabtaada aad ugu jeceshahay maxaa yeelay dhoola caddaynta waxa ay kuu soo jiidaysaa wadnayaasha dadka ku jeclaan doona si sahlan oo dhib la'aan ah sida xadiiska u sheegay nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dhoola caddayntu waa sadaqo qodobka labaad ku bilow salaan qiimo leh wax ka wanaagsan ma jiro inaad salaan ku bilowdid qof kasta oo aad la kulmaysid maxaa yeelay salaanta qiimaha leh waxay badinaysaa jaceylka ay dadka kuu qaadayaan qodobka saddexaad bixi hadiyado qaali ah hadiyadda waa dhaqanka ugu fiican ee ka dhexayn kara laba qof oo isjecel sidoo kale waa dhaqan uu noogu dardaarmay nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inaan isu hadiyadeyno waxyaabo qaali ah iyo waxaan qaali ahayn intaba si aan isu jeclaanno haddaad isku hadiyadaysaan waad isjeclaanaysaan qodobka afaraad hadal yar iyo aamusnaan iska jir inaad hadalkaaga badiso oo aad kor u qaylisid markaad sheekaysanaysiin asxaabtaada dhexdooda waayo taasi waxay dhimaysaa jaceylka lagu qabo adi soomaalidana waxay ka mahmahday hadalka badan oo ay ka tiri hadal badani haan ma buuxsho qodobka shanaad dhegaysiga fiican iyo aadaabtaada oo aad wanaajiso ha isku dayin inaad warka ka dhex geshid qofka kula hadlaya nabigeena ma samayn jirin hadalgoynta qof isagoo hadlaaya soomaaliduna waxay dhahdaa hadal lama wadaagee caanaa la wadaagaa qodobka lixaad ha hilmaamin isqurxinta iyo nadaafadda nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee soo ma dhihin ilaahay waa qurxoon yahay waxa uu jecel yahay quruxda iyo waxa qurxoon oo idil qodobka toddobaad u sheeg qofka aad jeceshahay inaad jacayl u qabtid haddaad qof u qabtid jacayl waxaa habboon inaad ku wargelisid jaceylkaad u qabtid maxaa yeelay nabigeena naxariis nabadgelyo korkii ha ahaatee waxa uu yidhi haddaad qof jeclaatid ugu tag gurigiisa una sheeg inaad jeceshahay mawduuceennii maanta daawadayaal waa naga intaa mahadsanidin soo dhowaada